iyadoo deegaanada Puntland ay ka curtaan roobka xilliga dayrta oo si weyn loo wada sugaya ayaa xilli hore waxa soo baxaya qasaare dhanka maalka ah oo roobkaasi ay u geysteen dadka reer guuraaga ah ee deegaanada u dhaxeeya degmada Dongoro iyo tuulada Usgure waxa aynu isku daynay inaan wax ka ogaano xaaladda dadkaasi walow ay adag tahay galitaanka goobahaasi arigii baa naga dhintay 4 tiro iyo 60 buu ahaa 10 neef baa hadda biicunaba taagan anaga ari kaliya naga baxay haddana guriga jaaca dhaga dheeraan joognaa waxaan ka qaatay saliid iyo xooga casha aqalkii wax kama harin gaas oo 4 tiro iyo 60 ahaa wax ka haray 2 neef baa la sheegay oo kaliya intii kale waska dhimatay ilaahay lahaa u oofsaday Faarax Yuusuf baan ahay waxaan haystay 7 tiro ariya konton neef biicuna baa naftu kaga jidha waxaan codsanaynaa ilaahayna abuurtay baan codsanaynaa isaga awood leh deeq ballaaran isagaan ka sugaynaa dawladda iyo hay'adaha iyo dadweynaha waxaan weydiisanaynaa dadkaas wuxuu u baahan yahay wax islaam oo gacan qabadkiisa waxaa jira gurmadyo hordhac ah oo ay sameynayaan ganacsatada iyo dadka hindhergaradka ah jaamac salaad dhaga dheere ayaa kamid ah dadka durbadiiba ka jawaabay qaylo dhaantaasi soo baxday ilaaha abaartii aan ka baqaynay naga soo doojiyay oo roobka na siiyay aanu mahadnaqayna intaa weey ilaahay roob badan buu na siiyay waxaan u maleynayaa maanta cid abaar fadhida inaysan jirin roobka aad ayuu u badnaa meel badan inaan marro dad badan oo roobku kala tegay buushashkii laamiga ahaa ama kaamamkii baadiyaha ahaa waa u gurmanay meel badan ayaanu maray dad badan oo reer baadiye ahaa oo xoolo badan dhaafeen waa u gurmanay waa u tagnay inta tabartay ah walow dhulka aan aad iyo aad loo gali karin dad badan oo lugaynaya oo lug ah waa u tagnay raashin iyo sharaab iyo biyo iyo wixii aan la gaari karo ayaan u geynay dadka yaga hadaan ganacsatanahay hadaan bakhaylin ahayn walow aan bakhaylin u badannahay anaga ku filan dadka yaga hadii dadka yaga laga seexdo oo loo gurman waayo anaga u gurmanayna culimadii waxaan leeyahay saad dadka ugu gurman jirteen ugu gurmada awal beedinka dadka ugu gurman jiray Nasrakiin Maxamed Maxamuud Hon Cable TV magaalada Garowe